بسم الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا نوماد علينا عليه ما تقانا نوقرتي أنا عافيمات لينا مشان نسوي مادنو oo ay tahay maanta waxa way dhul hadda ka hor aan wali aan biyo lagu qodin maanta laga soo saarayo biyahan sababta ay ku imaadeen haddii aan dib u raaco muddo dheer ayaan waxa way aan ku taameynay in dadka ay noqdaan dhulka wax ka soo saaran oo miro dhulka laga soo saara si bulshadu ay u anfacdo oo waxa way horumar ay u sameeyaan maxay la xoolihii dadka mataqaana dhasheeg joogo waxay noqdeen dad marka horeba xoolo yar ay iska hayeen xoolina waa iska been ilmihiina iskuulada ayaa la keenay saas daraadeed maadaama xoolihii ay shaqeyn waayeen dadku waxay u kaceen dhanka beeraha ayaa loo kacay si looga faa'iideysto marka muddo hore oo dheer ayaan waxaan ka soo shaqeynaynay beeraha inaan abuurno laakiin saas daraadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala nooma garanin in beerahaas uu roob ay helaan roobkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku xiran yahay wax kasta oo mataqaanaa beer ku saabsan ama mataqaanaa nolosha ku saabsan cirka xaggiisa uu ka yimaadaa saas daraadeed adiga waxa way noo suurtoobi weysay muddo badan ayaa waxaan ka shaqeynaynay sida aan mataqaanaa horumar kale u sameyn waqti 2023 waxaan codsanay inaan helno fursad mataqaanaa qaali ah waxa way inaan countiga aan ka helno beerahaas ay noo maalgeliso oo ay noo qodo wara iyo ceelal noo qodo marka mafaanoga ugu horeysay ama tusaalihii ugu horeysay waxaa lagu soo qaatay in beer mataqaanaa la qodo war weyn oo mataqaanaa beeraha ay ugu faa'iidaan tii ayadeed dowladda countiga waa ay ku maadsantahay waa ay noo samaysay war weyn ayaa mega dam ayaa naloo sameeyey warta iideed muddada iideed oo waxa weeye in ay biyaha noogu jiraan waxaan ku abuurnay shay kasta oo bixi kara ayaan ku abuurnay muddada iideedna waxa umaleynaa beerta iideed beerahaas iyaga waxaa laga gooyey qaraha ayaan nooga soo baxay galeyda ayaa nooga soo baxday qaraha ayaa maxaa la dhihi jiray in sisin ayaan ku abuurnay oo ka soo baxday unjugada ayaa ka baxday cawska laftigiisana waxa weeye waan ugu faa'iidnay waqtigeeda maadaama waqtigaas iyadii xilli roobeed ay ahayd waxaan waayay biyihii waxa weeye kor ka imaadi lahay ayaan waayay beerihii ayaan dib u falnay roobkii ayaan sugaynay wuu nagafiyey mar kaleeta ayaan haddana sidaas oo kaleeta aan falnay waxa weeye wuu nagafiyey maalin dhawta lafteeda dowladda countiga dhowrkoo jeer ay noogu talagashay sanadka hore lafteeda waa inoo fashay sanadkaana waxa weeye haddana waana loo falay roobkaan sugaynay ma helin mar sidaas daraaddeed ayaa dowladda countiga aan u codsanay in haddana ay mataqaanaa ay isbeddel kale noo samaysay si mataqaanaa biyaha dhulka ku jiro kuwa cirka haddii ilaahay subxaana wa tacaala weli noo keenin inuu ilaahay subxaana wa tacaala rajidiisa nala doonaan ayaan haddana aan ka codsanay countiga tii ayadan waa ka mari dhaliyeen marka saas daraaddeed annaga reer dhasheeg ahaan waxaan u mahadcelinaynaa dowladda countiga awoodda fikirka tashiga ay gelinaysa bulshada dhexdeeda ee ay rabto inay dadka ay hore u kacaan ay rabto oo ay dadka inay dantooda iyo noloshooda ay qabsadaan ay rabaan ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda uu hogaaminayo walaalkeen axmed cabdulaahi axmed jiir uu hogaaminayo wuxuu aad iyo aad ugu mahadsan yahay qaabka wanaagsan iyo habsamida uu u wado countiga inay mataqaanaa ay horumar ay samayso goob kasta iyo meel kasta oo ay wax soo saar leh hadday ahaan lahayd xagga mataqaanaa beeraha xagga waraabka xoolaha xagga bulshada lafteeda intaasoo dhan dadaal ku sameeyo nin madaxa ninka ugu habboonaa oo mataqaanaa maanta madaxtinimo istaahilana waa isaga maxaa yeelay qofka hadduu u fikiro bulshada soo saaray bulshada mataqaanaa soo saaratay hadduu u shaqeeyo adeegaas waa fuliyey maadaama dowladdan mataqaanaa mar hore aysan ay kor ka shaqayn jirtay devolutionkaas si uu imaadayna waxaa la dhahay dhulka hoose ha laga soo saaro grassrootka hoose laga soo bilaabo bulshada ha laga soo dhiso maadaama bulshada laga soo dhisan lahay bulshada in la soo dhiso ee dadaalkeeda qayb ka tahay midda maanta taagan oo ah in mataqaanaa bulshada meel walba adeegeeda loo geeyo annaga saas daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa axmed cabdulaahi jiir waxaanba dhihi lahayn madaxweynaha waddanka noqo waad ku habboon tahay ahaw waa tahay nin ku fikir fiicanna sida mataqaanaa looga talagalay dowladda waddanka kuwad ha ka gaabinna hawsha aad ku socotidna hore u dhaqaaqa dhiileen waxaa kaloo meeshaan aan ugu mahadcelinayaa walaalkeen waxaa weeyaan cumar aadan oo ah hogaamiyaha agriculture ahna isagana waxaa weeyaan runtii fikirkan markii aan la wadaagnay dowladda nooga adeegay si hufan karti leh oo galgabasho lahayn warkii uu naga qaaday toos u geeyey fikirka iskaayna dowladda nooga dhiibay jawaab rasmiyana laga bixiyey ninkaasna waa u mahadcelinaynaa ilaahay ama hadda iskale ilaahayna kulmi annagoo islaan iisana tabantaabaynayna caafimaadna qabna ammaanna haysanna ilaahay iisa keen kulmiya ama haddaas weyn iskale midda labaad waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa annaga reer dhisheeg haddaan nahnay biyahan maanta noola soo saaray waxaan u malaynaa magaaladan 40 sana jirtaa 40kaas oo u baahneen waxaan u malaynaa meeshan taariikh dheer ay leedahay waqtigii maxamed cabdi ama allah maxafaayas ku jiro
oo sanooyinka aaranka dhisheeg beeriga ka baxay wajeer oo dhan ayay girif lama wan ay qaateen sabuulahooda ma geeleysa keenay laakiin ka damba meesha waxay iska noqotay biyo adigu roob kaliya ah oo matoor lahayn waraa la qoday roobku ma adeyn matoor amaan xagga hadan la saari biyihiisa nuu filaan way hadda ilaahay ama hadle waa ka waa kor taagan shalay hadda dhexda biyaha waa noqof maayeen ilaahay ama hadda iska leh koonteeda ama hadda iska leh Ahmed Abdullahi Jiir sanadkan aad soo galay wax qabto ogna ka hor wax qabteen waa ogna adduunka ma gal joogan bani aadam waa laba nin wax isir ka dhax oo gacanta ku taagtay in wadanka wax ka qabto sheyga muhiimka ah waa wadanka wax laga qabtay ninkan wadanka wax iska qabtay anaga waa ogsoonahay waxa mashruuc hoos qabto waa ognahay inta hay'adda noolaato waa ognahay inta ceel hoos duriyaan ognahay inta jid oo barbar oo islaami saaran ognahay bal ninkan waxa waa aad iyo aad ugu maxdicilayna magacaydu waxa la hiraab cabdi aadan waxaana joogaa dhasheeg waqti badan ayaan beerahan maartay aad u abuuri jirnay dadka bisbaani kama wala shaqayn jirin beeraha dad yara ka shaqayn jiray laakiin markii la qoday wartaas weyn la qoday biyaheeda lagu soo saaray ay ka baxday galeyda baybayda ay ka baxday basasha ay ka baxday injuugida ay ka baxday dad badan oo fikirkaas markii hore ku jiray soo galay dad badan oo fikirkaas ku jirin ayaa soo galay marka aad iyo aad ay dawladda county ugu mahadsan tahay oo soo gaaminaya Ahmed Abdullahi soo gaaminaya aad iyo aad ay dawladdu u mahadsan tahay wax soo saar fara badan ayaan ka helnay anaga naftayna aad maartay anishu ugu kala qaadnay ilaa dad badan awal beeraha aad ugu shaqayn jiray hatta ay soo galaan laakiin nasiib darro xoogo roobkii ayaa marmar un roobkii ayaa biyo ay galayeen haddaan waxa noola qoday mashiin ayaa noola qoday insha Allah waxaan rabnaa in maartay aan ku dadaalna dawladda ka waa mahadsan tahay iyo dadka walaalaheen aad noogala shaqeey Allah mahad iska leh allihii halkan dhasheeg biyo naga siiyay alxamdulillah maanta dhasheeg ayaan joognaa halkan waxaan iskugu imaanay inaan witness gareyna the test pumping result waxaas ilaahay naga sii biyo beerooyin ku filan sidaan ognahay ceelka waxa looga talagalay beerooyin waxaa aad mahad iska leh hogaamiyaha madaxweynaha Wajeer ama governorka Wajeer His Excellency Ahmed Abdullahi Jiir oo karti weyn nagu sii in through the Department of Agriculture meeshan ceel laga qodo oo muhiimadeeda as ahaada beerooyin ceelka maanta biyo waxaan ka helnay 10 cubic ama hadii si kala loo dhaha 10,000 oo litir cala saac waxaana fili doonaa insha Allah ceelkana si degdeg ah lagu equip gareyn doono oo la saari doono solar waxaan ognahay soolada sidii ay tahay inay muddo ilaa 8 saac ay shaqeyn karta cala yoomkii ay soo saari karta 80,000 oo litir taasoo filayna inay ku filnaan doonto wixii beerooyin oo lagu asaasay magaalada dhasheeg waxa kale oo jirta ayamahan awal hore anaka waxaan dhaqaaleysan jirnay xoolo laakiin hadda xoolihii waa laga tagay dadkeena badi waxay aadeen beerooyin taasna county government awood weyn waxaan rabaa county government waa support weyn ay siisay dadkii beerooyinka waayo for the last 5 years aan soo dhaafnay abaarooyinka waa iska daba imaanayeen xoolihii aad ay u ba'ayeen laakiin waxa la arkay in beerooyinkii waxa laga soo saari kara taasna ceelkeena maanta gadaal shayda jooga waa loogu talagalay beerooyin waxaana fili doonaa in anfac fiican laga soo saaro doon sidii odayaalka ka dhawaajiyeen meeshan waxa la dhahay ilaa injuuga ayaa laga soo saaray waxaan filayaa county government of Wajeer meel injuuga laga soo saaray inay dhasheeg u horeyn doonto waxaana kale oo si filayaa in wax ka sii wanaagsan la soo saari kara sida basasha la soo saari kara qaraha la soo saari kara yaanyada la soo saari kara bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa magaalada dhasheeg oo ku taala Tarbaj sub county maanta meeshan waxaan u joognaa in aan test pumping ku sameynaa macabir aan ku sameynaa ceelkan wasaaradda agriculture oo beeraha iyo waraabka ay qodi wasaaraddanada ay qodi iyadoo hogaamina county-ga Wajeer county His Excellency Ahmed Abdullahi oo ina tahay manifestooda governorka in restoring hope maaragtay dadka rajo lagu soo celiyay marka magaalada dhasheeg dawladda county 2023 waxay ka qoday war weyn oo mega pan oo 60,000 cubic meters wartaas oo beeraleyda dhasheeg oo awal hore ka shaqeyn jireen beeraha ka shaqeyn jireen oo waqtiga roobka leh abuurin jireen eedeed u saacadeysi oo ay ku soo saareen sidii ay bulshada sheegtay basasha iyo maaragtay qaraha iyo maaragtay cawska iyo maaragtay cunooyin kala duwan ay ku soo saareen taas oo ay u iibgeysteen magaalada Wajeer oo ina ka faa'iideen
marka maadaama ay bulshada ay dadaashi iyo roobka iyo maaragtay iyo biyaha warta adeegsana oo wax ku soo saareen codsi ay noo kansadeen dawladda county-ga Wajeer iyo wasaaradda maaragtay beeraha iyo waraabka tiidan anagana waa ka ajiibni maanta meeshan waxaad biyo ilaahay naga sii biyo badan oo 10 cubic meter sida engineer uu sheegay 10 cubic meter waa biyo aad u badan oo 80000 liters per day waa oo soolada markii la isticmaala oo habeen lagu darin marka fursadan waa fursad qaali way u tahay reer sheeg sidii awal wax u soo saarayeen maanta way heleen maaragtay biyo oo bohol ay heleen in ay dadaal sii sameeyaan oo magaalada Disheeg dhulka beereedka lagu aqaani jiray ku socdiyaan marka anaga dawladda county-ga daanahna ceel iska maqodayna markii ceel qodin waxyaalo badan aan fiirinaya jirta maxay resource-kii la haayay oo dawladda haysa dadka meel walba ma wada gaaraan laakiin hadda dadaal dheeraad ayaan sameynay beero badan ayaan soo saarnay oo Wajeer County meelo badan oo Wajeer County oo cunooyin laga soo saaro waad aragteen oo basasha iyo maaragtay cambada iyo maanta Wajeer intii devolution ay bilaabeen maanta devolution waliba ay second term of His Excellency Governor Ahmed Abdullahi isku jiro maanta Wajeer waxyaalaha ay soo saar eedeed ay u badan yihiin cunooyin badan oo maaragtay Nairobi iyo maaragtay iyo down Kenya laga keeni jiray ayaa maanta laga kaaftoomay oo suuqeena maanta wixii tuuran oo qara iyo yaanyo iyo basasha sidii u badan tahay Wajeer County ayaa laga abuuray waxaan ogsoonahay abaarooyin baan ayaa jira abaaraha ayaa kisto beeraha maaragtay biyo badan ay u baahanayeen ay affect garay laakiin reer Wajeer waxaan ku boorinaa waqtigan abaaraha beeraleyda nafteeda inay cooska ay xoog saaraan maxay yeelay hadda maanta markii beeraleyda aan wareystay cooska suuqa la keenay eedeed ay u badan yahay wax ku heraana ma laha dadkii wada iibsanahay beeraleyda ayaa waxa gadanayaan bulshada ayaa gadanaysa si ay xoolahooda ay ku nafaqeeyaan waqtigan abaaraha ay jiraan marka maanta waxaan ku boorinaa beeraley meel kasta oo joogtaba waqtigan abaaraha way maaragtay abuurada maaragtay qaarkood ay si fiican ay u bixinin inay ku dadaalaan cooska noocyooyin kala duwan qaba jungaw grass ayaa jira coos kale oo African foxtail la jirto oo sencras la cooska inay ku dadaalaan wax soo saaraan maxaa yeelay waqti walbaba inay gacan u horsana cunto xoolaha cuntadooda aan dawladda iyo maaragtay ka sugnaa hay'adaha samafalka waa laga fiican yahay ilaahay biyaadna si hadda waxaan u maleynaa Wajeer inta meelood beer maanta laga abuuray oo inta qaf oo isku qaantay inay beer ay bilaabaan waa zaid anaga dawladda county-ga Wajeer County kale afar meel inta beerood ku taal waa zaid beerahaas sanadka miisaaniyadka la soo dhaafay 55 beer ayaan soo la saarnay 55 beerood ayaan solarization iyo water reticulation u sameeyay solar aan u saarnay pipeline u hagaajinay beeri iyo ayaan soo la saarnay markii aan tagnay anaga baaritaan iyo monitoring sameynay waxaan aragnay in beerahaas ay sare u kaceen marka waxaan ku boorinayaa kuwa kale oo ka maarma dawladda taa in ay saacadeyso oo ilaahay wax si in ay umud beeraha ay galaan wax ay soo saartaan si aan Wajeer County aan ugu kaaftoono cunooyinkii abuurka laga keena iyo waxyaalaha maaragtay cooska iyo cuntada xoolaha laga keena gobolada kale wadanka oo meel dheer laga keena